kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya waan idinkaga soo gudbinayna barteena YouTube channelkan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee adduunyada oo idin inaguna waxaan diyaar ku ranahay markasta inaan kusoo gudbino wararkaas iyaga oo wata qoraal maqal iyo sidaas oo kaleba sawiro muujinaya dhacdooyinkaasi wararkan idin hayna waxaa kamid ah banaanbax lagu taageeraya dowladda federaalka gaar ahaan xukuumadda oo ka dhacay Puntland wararka kale waxaa ku jira madasha xisbiyada qaran oo war ka soo saaray kulankii Shariif Xasan waa Sheekh Axmed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee la yeesheen gudoomiyaha golaha shacabka Mursal qodobo ay codsadeen iyo madaxweyne Farmaajo oo la hadlay iyo ra'iisul wasaare Khayre Wayaane oo la hadlay xasan sheekh maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo waxa kulankooda ka soo baxay waxa kale oo idin haynaa weerar lagu qaaday guriga uu magaalada Djibouti dalka Djibouti uu ka deganaa duuliyaha u xiran dowladda Djibouti Fuad Yusuf Ali haweeneyda duuliyaha oo sheegtay in gurigeeda la soo weeraray isla markaana la baabi'iyay agabkii guriga u yaalay Cabdiraxmaan Cabdi Warsame oo sheegay in buuqii baarlamaanku uu ahaa mid loo baahnaa oo madaxweyne Farmaajo ay ahayd in lala xisaabtamo waxa kale oo aan idiin soo gudbin doonaa Cumar Finish waxa uu shaaca ka qaaday waqtiga rasmiga ah ee la furi doono jidadka magaalada Muqdisho waxaan ku bilaabaynaa qodobada intaynu guda gelin ka codsanayna in channelkeena subscribe tiraahdo si aad u hesho wararkaasi oo idil madasha xisbiyada qaran waxa ay shaaciyeen natiijada warkii waa kulankii ay la yeesheen gudoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare weeyaane madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku shaaciyay natiijada kulankii u dhaxeeyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa warka lagu yiri gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Shariif Sheekh Axmed iyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tirsan hoggaanka sare ee madasha xisbiyada qaran ayaa kulamo wada tashi ah la qaatay Axadii 7 Juun 2020 wafdi ay kala hogaaminayeen labada gudoomiye baarlamaan ee aqalka sare iyo golaha shacabka Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan warka sida lagu yiri waxa kamid ahaa hadafka kulamadan wuxuu ahaa in madaxweynayaashii hore ee dalka ay dalka iyo hoggaanka golayaasha sharci dejinta dalka in ay iska wareystaan xaaladda guud ee dalka uu marayo waxa sidoo kale warka lagu yiri iyo in aan la aqbali doonin wax kasta oo kala dhantaalaya hadda hay'adaha dastuuriga ah iyo qaabka ay u dhisan yihiin iyo xaalku iminka sidii uu yahay dood iyo gorfayn qaadatay goor raali noqda dood iyo gorfayn qoto dheer kadib waxaa gudoomiyaha labaad ee gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare labaduba ay isla qaateen muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo howlaha muhiimka ah ee horyaala ummadda Soomaaliyeed xilligan lana abuuro jawi degan oo si kalsooni leh ama kalsooni ay ku dheehan tahay looga abaari karo waajibaadka dastuuriga ah ee la xiriira doorashooyinka federaalka sidoo kale waxa ay labada dhinac isla qaateen in la ballaariyo wada tashiga lana tixgeliyo baaqyada ka soo yeeraya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed si loo gaaro xal ku dhisan weeyaane isqancin iyo wada ogol hoggaanka madasha xisbiyada qaran wuxuu ka mahad celinayaa ama uga mahad celinayaa kulanka labada gudoomiye baarlamaan ee golaha sharci dejinta ee aqalka sare iyo golaha shacabka wuxuu uga mahad celinayaa kulanka ay la yeesheen madaxdii hore ee dalka soo martay ee madaxweynayaasha ah wuxuuna hoosta ka xariiqay inay diyaar u yihiin in arrimaha masiiriga ah ee dalka wada xaajood lagala galo cid walba oo ka mid ah saamilayda siyaasadda dalka madasha xisbiyada qaran waxaa loo yagleelay ilaalinta dastuurka ku-meel gaarka ah ee dalka sidoo kale nidaamka geyiga Soomaaliyeed iyo madax banaanida siyaasadda ee dalka tallaabo walba oo ay qaadayso madasha xisbiyada qaran waxay noqonaysaa mid ku qotanta mabaadi'da aasaasiga ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee guddiga madasha xisbiyada qaran oo madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ay la qaateen labada gudoomiye baarlamaan Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu shaaciyay waqtiga la furayo jidadka ku xiran magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa sheegay in lagu guuleystay sugidda amniga magaalada Muqdisho taasi oo sahlaysa sida uu yiri in la furo wadooyinka xiran gudoomiyaha ayaa sheegay in la gaaray ujeedadii laga lahaa xiridda jidadka magaalada Muqdisho isla markaana
dhowaan ay furi doonaan wadooyinka markii hore loo xiray ka hortagga qaraxyada al-shabaab ay ka fuliyaan magaalada muqdisho. gudoomiyaha ayaa tilmaamay in sababta loo qaadayo kontaroolada faraha badan ee magaalada dhex yaala ay tahay sidii shacabka loo dareensiin lahaa in magaaladu ay tahay mid nabad ah. warkiisa laga soo xigtay waxa uu ku yiri, waxaan rajaynayaa in wadooyinka la furo bisha hadda lagu jiro oo ah bisha 6aad gudaheeda, maadaama la xaqiijiyay amniga muqdisho oo baraha kontaroolada laga qaado gudaha magaalada iyada oo la geynayo goobo durugsan oo magaalada cirifkeeda ah, ayuu yiri duqa muqdisho oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday muqdisho. waxa uu ammaanay ciidamada dowladda oo uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa ka dambeeya in ay magaaladu noqoto mid nabdoon, midaasna ay iyagu ku mahadsan yihiin. waa sida uu warka u dhigay. waxaa xusid mudan in horey ay u suurageli weyday ballanqaadkii Cumar Finish uu ku sameeyey markii uu xilka la wareegayay ama loo dhiibayay ee ahaa in uu furi doono wadooyinka magaalada muqdisho, isla markaana sidii uu wax moodayay aysan noqon. jidadka muqdisho ayaa xiran muddo badan, waxaana saameyn ay ku yeesheen ganacsiga iyo isku socodka magaalada muqdisho, inkastoo lagu guuleystay in la yareeyo qaraxyadii iyo weeraradii al-shabaab ay ka fulin jireen magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. markana waxaan rabaa inaan idin maqashiiyo codka gudoomiyaha gobolka Banaadir bisha hadda lagu jiro oo ah bishii 6aad gudaheeda, maadaama la xaqiijiyay amniga gudaha magaalada muqdisho, bar kontaroolada in laga qaadi doono goobahaas lana geey doono goobo durugsan oo magaalada cirifkeeda. macnaha taasi waxay tahay amnigii waa la sugay, waa la xaqiijiyey. sidaa darteed bulshada Soomaaliyeed ee culayska ka dareemayay bar kontaroolada magaalada dhexdeeda ha dareemaan nasasho, neef iyo usudhaq iyo isu socod ka turjumaya nabad in la gaaray. ciidamada Soomaaliya halkaan ayaan uga mahad celinayaa, maxaa yeelay la-aantood waxaan hubaa inaan intaanu isu timaadeen. ilaahay subxaana watacaala ka sugo. aad buu umahadsan yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho Cumar Finish oo arrintaasi ka hadlayay. dadka muqdisho ayaan siyaabo kala duwan usoo dhaweeyay warka kasoo baxay madaxweynaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho ee ah in jidadka magaalada la furayo. waxaad la socotaan wararkeena oo idinkaga imaanaya barta aan ku leenahay youtube-ka. waan idinkaga mahad celinayna sidaad noola socotaan. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha in lagu fooriyo ay tahay arrin ay aada usoo dhaweynayaan. waa sida uu warka u dhigay. warkiisa waxa uu ku yiri in madaxweynaha lagu fooriyo waxay dhigaysaa dimuqraadiyadda iyo halka la hiigsanayo, waxay sidoo kale muujinaysaa sida ay dadka Soomaaliyeed uga rajo dhigeen. waa sida uu yiri madaxweynaha iyo hamigii laga qabay ama hamigii dhankiisa loo qabay. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kamid ah siyaasiyiinta sida weyn u mucaarsan dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay sida uu arko buuqii ka dhacay xarunta baarlamaanka Soomaaliya. waa xarunta golaha shacabka oo baarlamaanka ku shiray oo madaxweyne farmaajo furayay kala fadhiga toddobaad ee ah midka ugu dambeeya labada aqal ay yeelanayaan. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo waraysi siiyey TV dalka laga leeyahay ayaa sheegay in ay tahay in madaxweyne farmaajo uu ka faa'iideysan waayay talooyinkii ay u jeediyeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana uu ka hadli waayay xaaladda dhabta ah ee dalka uu ku jiro. cabdiraxmaan ayaa ku eedeeyay madaxweyne farmaajo in uu keliya diiradda saarayo faan iyo inuu sheegto waxqabad aan loo jeedin. waa sida uu warka u dhigay. halkii laga rabay in uu run ka sheego xaaladda uu dalku ku jiro ayuu waraysiga u bixiyey. qaybo kamid a warkiisa uu ku sheegay. meelo kamid a magaalooyinka Puntland waxaa lagu soo waramayaa in ay xaaladdu noqotay mid aan wanaagsanayn, waxaana dadka warbaahinta arrimahooda xaaladahoodana soo gudbinayay ay xaqiijiyeen in arrintaasi ay tahay in xaaladdu ay tahay mid aan wanaagsaneyn marka loo eego ciidamada Puntland oo iyaga soo horistaan ku sameeyay sida ay ahayd in loo wajaho arrinta la xiriirta barnaamijkaasi iyo qaabka loo joojiyay. dhalinyaro galmudug ka soo jeeda ayaa muddo ka badan 12 sano waxa ay ku xiran yihiin xabsi ku yaala magaalada Garowe ee Puntland, waxaana ay sheegeen in daryeel xumo ay ku haysato. waa sida ay ku sheegeen waraysi ay bixiyeen iyo arrimo xoga ah oo iyaga laga helay. kuwan waa maxaabiis Soomaaliyeed oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada Garowe ee Puntland. maxaabiistan ayaa xiran muddo 12 sano ah iyadoo dowladda Shishalis ay ku wareejisay Puntland. dadkan badankooda waxa ay ka soo jeedaan deegaanada Galmudug.
dhibaato badan ayay ku sheegeen in xabsiga ay ku haysato halka kuwa qaarkood ee la xirnaana la sii daayay. dhalinyaradan ayaa lagu kala magacaabaa Dr. Shaafici Cabdullaahi Cali, Xuseen Axmed Maxamed, Dina Xaashi Nur, Cabdirasaaq Aadan Jimcaale, Bashiir Xasan Cali, Cali Maxamed Cali, Cabdulqaadir Xaashi Cawaale, Salaad Maxamed Diiriye, Daahir Maxamed Cabdi, Cumar Warsame Jaamac, Cabdi Xasan Maxamed, Cabdiweli Axmed Faarax, Caamir Cumar Samriye, Maxamuud Jaamac Kulan, Bashiir Nuur Maxamed. waxa ay sheegeen in hadda 12 sano xabsi ay qaateen, sidaas darteedna ay dalbanayaan in xorriyadooda dib loo siiyo ama laga sii daayo xabsiga dhibaatada badan ay ku qabaan ee ku yaala Garowe ee Puntland ay maamusho oo loo wareejiyo dowladda federaalka ama deegaanada ay ka soo jeedaan ee Galmudug ay ka arrimiso. maxaabiistan qaarkood ayaa telefoonka noogu warramay iyaga oo ku jira xabsiga Garowe ee Puntland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacayga waxaa la yiraahdaa Cumar Warsame Jaamac. waxaan ahay dhalinyaradii Shishirs laga keenay oo xabsiga Garowe la keenay. waxaa ku xukumanahay 16 sano. waxaan ahay nin ka soo jeeda reer Galmudug, nin ka soo jeeda ayaan ahay. sidaas aawadeed marka magacayga mar labaad haddii ku celiyo Cumar Warsame Jaamac la yiraahdaa. waxaan ku xukumanahay 16 sano. dhawaantii anigu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacayga wuu mahadsan yahay wayna mahadsan yihiin maxaabiistaasi iyagoo Garowe xabsiga ku yaala ku jira noo warramay. maxamed cali xaaji oo kamid ah wariyaasha ee magaalada Muqdisho goobjoogna ka tirsan ayuu u warramay. markana warbixin kale oo ka hadlaysa bal sida ay tahay xaaladda magaalada Muqdisho iyo xisbigii nabad iyo nolol la oranayay oo ay xukuumaddu sheegtay magacaasina iyadoo leedahay loona diiwaan geliyay isla markaana ay iyagu soo baxeen madaxda dowladda federaalka oo dhankooda lagu eedeeyay in ay soo miinguuriyeen ama aysan lahayn magacaasi dhalinyaro sheeganaysa ayaa soo baxday. dhowaan xisbi ay leedahay xukuumadda Soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda oo ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo ayaa lagu dhawaaqay lana sheegay in si rasmi ah loo diiwaan geliyay. xisbi siyaasadeed ay leeyihiin xukuumadda Soomaaliya ayaa si rasmi ah looga diiwaan geliyay xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kadib markii la gudbiyay warqadaha codsiga diiwaangelinta sida ilo xog ogaalihi ay soo wariyeen. mar kalena uu sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed. haddaba markii halkaas ay marayso ayaa waxaa jira xubno iyagu sheegay in ay leeyihiin magaca xisbigaas oo guddiga doorashadu uu ka diiday in iyaga loo diiwaan geliyo. magaca in la isku qabsado miinguurintiisa ayaa waxa ay noqotay hadalhayn badan mid baraha bulshada ka dhalisay. waxaan helnay xogo muujinaya ka hor xukuumadda madaxweyne Farmaajo in magacani noolaa lana isticmaalayay maadaama markii hore aysan jirin guddi doorasho oo laga diiwaan geliyo magaca iyo in xisbiya loo tartamo oo aysan markaasi fifaaladeeda muuqan ayaa sabab waxay u noqotay sida uu inoo sheegay Bishaar Aadan Geedi in ay u shaqeeyaan qaab urur ahaan ah. waxaan weydiinay magacan nabad iyo nolol yaa leh, sidee ku shirkowdeen madaxda dowladda federaalka iyo adinku, yaase magaca idinka dhacay? waxaan rabaa inaan ka hadlo lahaanshaha xisbiga nabad iyo nolol ama magaca nabad iyo nolol. magaca nabad iyo nolol waxaa leh urur siyaasadeed oo ay leeyihiin siyaasiyiin Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo aan aniga hogaamiyahooda ahay. magaca nabad iyo nolol waxaa la sameeyey sanadkii 2014. urur siyaasadeed buu ahaa sababtoo ah markaa ma jirin guddi doorasho iyo meel laga rajistareeyo. annaga iyo madaxda dowladda federaalka oo xiriir nagama dhaxeeya si shakhsiyaadka qaar oo soo naqaanaa, laakiin ma jirto meel aan ku wada hadalnay waan kaga wada hadalnay magacaas nabad iyo nolol inaan ayaga ku wareejino ama codsi ay noo soo jeedeen ma jiro. magaca social media ay ka heleen halkaasay ka isticmaaleen. guddiga doorashooyinka waan wada hadalnay, waan u tagnay, waan ula tagnay dokumentiga annagi waxaan geynay 2018 inagoo daba taagan isticmaalka magaca ay dowladda isticmaalaysa. waa weydiinay inay xisbi ahaan ula yimaadeen ama ay registraysteen. waxay nagu yiraahdeen maya, saad idinku aragtaan annaga u aragnay. waxaan nidhi magaca annagaa leh, maxaa caddaynay nagu yiraahdeen. dokumentigaan tusnay aan annagu lahaanshihiisa ku caddaynay. waa qanceen, waxay yiraahdeen okay, waxay naga fiiriyaan dastuurkii, waxay yiraahdeen dastuurkaan sii checking garaynaynaa, waxaad geysaan lacagtii fiiga ahayd bangiga dhexe akaanku uu ku leeyahay guddiga doorashooyinka. waa tagnay bangiga dhexe, lacagta waa soo shubnay, waa ula soo noqonay, rasiidkaan u geynay. waxay dib noogu dhiibeen dastuurkay yiraahdeen okay, soo dhamaystira dastuurkiina. waa baxnay, dastuurkii dhamaystirkiisa annagoo ku maqan adigu 4 bari 5 bari cawn markay kasoo wareegatay dib bay noo soo waceen. waxay yiraahdeen nima imaada. waa loo tegay, waa la weydiiyey maxaa dhacaa la yiri. waxay yiraahdeen hadal baa ka yimid xisbigiini
magacan dowladda isticmaasho madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa mar la furayay xafiiska cusbaa ee ra-iisul wasaaraha oo isaga shirka doomanayay ayuu meesha wuxuu ka dhahay dowladdan waa dowladdii nabadii nolol soo hadalka madaxweynaha waa dikreeto waxaan ku niri madaxweynaha waa ixtiraamayna waa madaxweynaheeni laakiin waxa dikreetada noqonaya waa waxa cusub ee isaga uu soo kordhiyo ama qof jago u magacaabo ama xilka qaadis sameeyo ama dan guud la aado tani waa barbeete dad leeyahay waa magac dad leeyahay waa xisbi siyaasadeed waqtigaa la dhisay caddeyntiisana aan haysano waxay leedahay nimayahow arrinkaasi waxaan idinkula talinaynaa meesha waa dowladna haddii lama tartami kartaan waxaan idinka codsanaynaa magac inaad soo bedeshaan war waxaan ku niri dowlad inaan la tartano waxaan xisbiga u samaysanay abataa ah magac dowladeedna lasuma isticmaali karo waxaan rabnaa annagu inaad noo tixgelisaan ama cidda nagu haysata magaca aadna soo hor fariisisaan si aan ula doodno guddiga doorashooyinka kama suurtagelintii ayada ahayd arrinta kale ee sheegidda mudan ayuu ku tilmaamay Bishaar Aadan Geedi oo ah ninka hadda u doodaya inuu leeyahay magaca nabad iyo nolol oo xisbi ahaan looga diiwaan geliyay guddiga doorashooyinka marka loo eego xukuumaddu inay qaadatay magacaasi ayaa waxa uu sheegay in xitaa ay tageen guddiga doorashada oo laga diiday in loo diiwaan geliyo markii horese loo sheegay inay lacagta kusoo shubaan bangiga dhexe ee diiwaangelinta magaca ku baxaysa ugu dambeynna waxaan weydiinay wax u qorshaysan ومحسن yahay xisbiga iyaguna leeyihiin uu sheegay arintaasna hadalhayn badan ay abuurtay waxaan ku daabacnay boggeena Facebook wararkan iyo warar kale oo badan halkaas ka heli kartaa YouTube-keena la soco subscribe na saaro waadna mahadsan tahay warbixino kale oo dheer diyaarmada doorashooyinka ayaa iyaguna waxay yihiin arinta guuxa siyaasadeed ee ugu badan abuuraysa iminka wixii soo kordhan isla halkan kala soco nabadgelyo